Axmed oo ka hadlay dhulka Amxaarada iyo Tigreegu ku muransan yihiin iyo waxa laga yeeli doono. Amxaaradii oo durba maamulku meel gaar ah u magacowday deegaanadii lagu muransanaa kadib 30 maalmood oo howlgallada Tigreegu socdeen halkee xaalku maraya maxaase guulo la taaban karo ay dowladda Abiy Axmed ka gaadhay. Qowmiyadda Amxaarada oo bilowday ololaheedii Itoobiya mida haatan waxay leeyihiin ha laga daayo kelmadda shucuubta Itoobiya isla markaasina ha la isticmaalo shacabka Itoobiya oo hal mid ah. Eritrea oo dagaal lugaha la gashay afgembi dhicisoobay iyo ciidankii dalkaasi oo laba qaybood u qaybsamay. Ugu dambeyntiina midowga Yurub ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed kadib dagaalka gobolka Tigreega. Intaasi waa qodobadeena wararka aan idiin hayno ugu doorka roon haatan ha ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Aan ku bilownay kooxda TPLF ayaa bilowday inay baabuur qaraxyo u adeegsato gudaha dalka Itoobiya. Habeennimadii xalay ahayd qabalaha Sandeba ee ku xeeran magaalada Gondar ayuu qarax xoogani ka dhacay. 3 gaadiid xamuulka oo siday konteenaro hub ayaa xadhiga soo goostay kadib meel dhexe markii ay marayaan ayaa lagu qabtay halkaasi iyadoo la baarayo ayuuna darawaladii mid ka mid ah istaabsiiyay walxaha qarxa oo gaadhigaasi saara. Ilaa iyo haatan inta ay qirteen maamulka gobolka Amxaaradu waxaa la sheegay in dhaawaca 20 qof ay halkaasi ka dhalatay halka hal qofna uu ku dhintay. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadlay xiisadda dhulka ee u dhaxaysa Amxaarada iyo Tigreega waxa uu sheegay waraysan ku farxin Amxaaradu waana suuragal inay wax waliba isbedelaan oo ra'iisul wasaaraha ay ku bilaabato mucaaradnimo hor leh oo ka timaada kooxda xagjirka ah ee Amxaarada. Abiy Axmed oo kulankii maanta ka hadlayay ayaa sheegay in xiisadda dhulka ee Tigreega iyo Amxaarada u dhaxaysa lagu xallin doono kaliya wada sharciga waafaqsan oo daraasadna lagu kabay. Wuxuu xusay in xiisadda uu go'aamin doono komishinka isirka iyo xuduudaha ee dalka balse aan lagu bedeli karin qaab rabshadeed. Durbaha qolyaha Amxaarada qaybo badan oo ka mid ah ayaa go'aanka Abiy Axmed ka hor yimid isla markaasina ka biyo diiday. Muddooyinkii dambeba Amxaaradu waxay ku baaqayeen in ciidamada Amxaarada ee dhulkaasi qabsaday aysan ka soo bixin waxayna sheegeen in dhulkaasi uu dhiig badani u daatay. Inay Amxaaradu ku adkaysanayso dhulkan ay u dagaalantay inaysan ka soo bixin iyo Abiy Axmed oo damacsan siyaasad aan farxad gelinin Amxaarada ayaa abuuri karta iska horimaadyo hor leh oo dhinacyada dagaalka Tigreega isku garabsanayay ay haatan ku kala boodaan. Dhanka kalena Amxaaradii ayaa durba ku dhawaaqday maamulku meel gaar ah oo ay u sameeyeen deegaanadii la isku haystay iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Axmedna sida siyaasadtaasi ka duwan uu sheegay oo arrinta dhulkaasi uu ku wareejiyay guddiga isirka iyo xuduudaha. Maanta ayay deegaanka Amxaaradu waxay dhidibada u aaseen maamulku meel gaar ah oo la sheegay inuu maamuli doono degmooyinka Wolkayt, Dagane, Dansha iyo Humera. Dhamake Zawde oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay inay maanta maamulku meel gaar ah u sameeyeen dhulka uu sheegay inay xoogga ku qabsadeen isla markaasina maamulkaasi isagu uu ka yahay ku xigeen. Walow uu Dhamake Zawde sheegay in maamulkani ay dadku doorteen haddana waxaa hubaala inaysan taasi ahayn mid sal iyo raad toona leh isla markaasina deegaanka Amxaaradu magacaabay. Deegaanada Wolkayt, Dagane, Humera, Araya, Talamiti iyo meelo kale ayaa ah meelaha cadaawadda xudunta u ah Amxaarada iyo Tigreega. Arrintani ayaa ah caqabadda ugu ballaaran ee Abiy Axmed uu haatan wajihi doono waana mid ay sababtay doorkii dagaalka waqooyiga dalka maleeshiyaadka Amxaaradu ay ku garabsiiyeen dowladda federaalka. Haddaba kadib 30 maalmood oo howlgalka Tigreegu socday halkee xaalku maraya maxaase guulo la taaban karo dowladda Abiy Axmed ay gaadhay. 30 maalmood oo dhiig ku daadanayo waqooyiga Itoobiya dhimashadu waxay maraysaa kumanaan. Khasaaraha kale ee soo gaadhay dhaqaalaha dalkaasi iyo burburka hantiyadeedna waa mid baaxad ballaaran oo aan la soo tirakoobin haatan. Dowladdu waxay qabsatay magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega waxayna dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa kala kulmaysaa maamulkii gobolka Tigreega oo jabhadeyn haatan bilaabay.
diyaaradaha dalka Itoobiya waxay shalay duqeymo ka geysteen meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada Aksum oo ka mid ahayd meelihii ciidamada dowladdu ay ugu horqabsadeen deegaanada Tigreega. shacabkii Tigreegu waxay gurteen hubka waxayna dagaalada kula jiraan ciidamadii dowladda dhexe. magaalada Maqale way go'doonsan tahay kadib markii dowladda federaalku la wareegtay waxaana dhammaan wadooyinka soo gala gooyay TPLF oo jabhadeyn ka wada buuraleyda ku hareereysan. kooxda TPLF dhulka kaliya kama go'doominin magaalada Maqale ee xataa hawada ayay ka xidhay maadaama ay ku hubeysan yihiin liska diyaaradaha. toddobaadkan ayayna ahayd markii ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya. guulaha ay gaadhay muddada 30 beri ah dowladda federaalku waxaa lagu soo koobi karaa qabashada magaalada Maqale, sidoo kalena qabashada madaxii maleeshiyada gobolka Tigreega oo Suudaan lagu qabtay, iyo sidoo kale Khayriye Ibraahim afhayeenkii hore ee baarlamaanka Itoobiya oo dowladda dhexe isu soo dhiibtay. dhanka dagaalka marka laga yimaado magaalooyinka dowladdu sheegatay inay ka qabsatay iyo hub, sidoo kale ay sheegeen dowladda federaalku inay ka burburiyeen kooxda TPLF, ma jirto wax la taaban karo ama xasiloon oo haatan la isku halayn karo. dhanka Tigreegu waxay sheegayaan inay khasaare xooggan u geysteen ciidamada dowladda federaalka ee ay kula dagaalamayaan furimaha hore ee dagaalka. afhayeen u hadlay kooxda TPLF ayaa sheegay in ilaa iyo 3 aag ay ka dagaalamayaan isla markaasina ay jab weyn u geysteen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. isku soo wada duuduuba waxaa la leeyahay dagaalku kow ma joogo, welina awoodii Tigreega lama wiiqin. marka laga yimaado in magaalooyin dhowr lagala wareegay waxaana weli socda dagaalo adag oo dhinacyadan ku dhex maraya dhulka baadiyaha ah ee buuraleyda. dhanka iyo qowmiyadda Amxaaradana waxay bilowday olole Itoobiya oo mid ah ay ku baadigoobayaan, waxayna soo jeedinayaan in kelmadda shucuubta Itoobiya laga daayo warbaahinta dalkaasi isla markaasina lagu bedelo shacabka Itoobiya. markii hore dooda kooxda Amxaaradu waxay maraysay kililada, dastuurka iyo calanka in wax laga bedelo. maalmahan waxaa soo badatay dood odhanaysa saxaafaddu yaysan adeegsanin ereyga shucuubta Itoobiya, waxayna ku doodayaan inay ka mid tahay arrimihii qaldanaa ee TPLF laga dhaxlay. waxayna leeyihiin ha la dhaho shacabka Itoobiya. shacabka Itoobiya marka la dhaho waxay muujinaysaa dal qowmiyado badan ku nool yihiin. shacabka Itoobiya wuxuu muujinayaa kaliya waxay u doorbidayaan maadaama midnimo iyo hal dal uu yahay waxay doonayaan. dhankaas iyo Eritrea waxaa ka taagan xiisad dagaal kadib markii uu si dirqiya uga badbaaday madaxweynaha dalkaasi Afgembi dhicisoobay. madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa si dirqiya uga badbaaday Afgembi ay soo qorsheeyeen qaar ka mid ah generaalada ugu sarreeya dalkaasi. Isaias oo in muddo ahba ku mashquulsan arrimaha dalka Itoobiya ayaa haatan godkiisii biyo ugu galeen. Afgembigani oo ay soo abaabuleen generaalo lagu kala magacaabo Generaal Kokobe Nugusa iyo Generaal Garre Isaya, kuwaasi oo la wareegay xeradii ugu weyneyd ciidamada Eritrea, waxaana la sheegay inay haystaan ciidamo fara badan oo taabacsan. Isaias oo muddo dheer caburin iyo cagajuglayn kusoo haystay dadka reer Eritrea ayaa wajahaya waqti adag. waxaa la sheegay in ciidankii Eritrea ay laba u kala qaybsameen, haatanna ay hubka isu haystaan. odayaasha dhaqanka ayuu madaxweyne Isaias Afwerki u diray inay la soo xaajoodaan generaalada gadoodsan ee la wareegay xeradii ugu sarreysay ama ugu weyneyd ciidanka dalka Eritrea. odayaashaasi dhaqanka ayaa la sheegay in xerada banaankeeda lagu maxaabiisay, isla markaasina ay diideen generaaladu inay la hadlaan. xeradani oo sidan horeyba idinku sheegnay midda ugu weyn ee dalka Eritrea ayaa la sheegay inay yaalaan hubka culus ee dalkaasi isaga difaaci jiray dalka Itoobiya. waxaana ka mid ah hubkaasi diyaaradaha dagaalka, kaarayaasha iyo sidoo kale gantaalada meelaha fogfog wax ka duqeeya. ugu dambeyntiina midowda Yurub ayaa ka fiirsanaya inay joojiyaan taageerada miisaaniyadeed ee ay siin jireen xukuumadda Itoobiya ee Abiy Ahmed sababo la xidhiidha xiisada Tigreega ee dagaalka isu rogtay ee toddobaadyadii ugu dambeysay ka socotay waqooyiga dalkaasi Itoobiya. midowda Yurub waxa uu hore taageero ahaan u siin jiray dowladda Itoobiya dhaqaale dhan 815 milyan oo euro, midaasi oo u dhiganta 975 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu shubi jiray qasnada dowladda. mas-uuliyiinta midowda Yurub ayaa lagu wadaa inay hakiyaan taageerada lacageed iyo maaliyadeed
ka gadaala saameynta ballaaran ee ka dhalatay howlgalkii militari ee Abiy Ahmed uu ku qaaday gobolka Tigreega. Arrinta ugu weyn ee Midowga Yurub u sababayn doono joojinta taageerada Itoobiya ayaa lagu sheegay saameynta rabshadaha Itoobiya ka socda ay ku yeesheen ilaalinta xuquuqda aadanaha kadib dagaalka dowladda dhexe iyo maamulka TPLF. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa muddo ka dhaga adeegaysay joojinta dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi, kaasi oo barakiciyay kumanaan dad ah oo ku noolaa gobolka